السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saliidda laga sameeyo geedka qumbaha waxay ka mid tahay saliidaha Ilaahay geliyay faa'iidooyinka caafimaad ee aan la soo koobi karin iyadoo siyaabaha saliidan loo isticmaalaa ay badan tahay waxaana ka mid ah waxyaabaha saliidan loo adeegsado in lagu nadiifiyo ilkaha oo lagaga saaro suuska iyo bakteeriyada ku dhalata ilkaha hoostooda ee waxyeelada u geysata caafimaadka ilkaha waxaana saliidan ku jira xaddi badan oo calcium oo u fiican ilkaha marka haddaba saliidan loo adeegsanayo ilkaha waxaa loo adeegsadaa laba qaab oo kala ah in subaxda hore adigoon waxba cunin aad ku luqluqato saliidan adigoo kabanaya waxoogaa saliidana kadibna ku luqluqanaya adigoo aan liqahayn adigoo afkoo dhanna ku wareejinaya intaa kadibna waad iska tufaysaa iyo qaabka labaad oo ah in markaad cuntada cunto aad kaga daba luqluqato saliidan ugu yaraan maalintii 2 jeer waxa haddaba lagula taliyaa qofka saliidan qaabkan u isticmaalaya inuu qaabkan u isticmaalo 2 week oo xidhiidha 2 week kadibna waxaad arki doontaa isbeddelka la yaab kale ee ku dhaca ilkahaaga insha Allah mana laha saliidani wax dhibaato ah aad baad u mahadsantihiin تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب